السلام عليكم دمان دو Soomaaliyeed waa macalin Daahir Dictionary ku soo dhawaada cashirkii koowaad ee koorsada freega ah aan ugu talgalnay ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan meel kasta ay joogaan cashirkan ugu horeeya maanta cashir muhiim waaye oo aad iyo aad muhiim badan oo arday badan isoo weydiiyay waxaan ku baran doonaa when to use xilligan isticmaalna labadan eray do xilligan isticmaala and make xilligan isticmaala labadaas eraysaan ognahay waa verb fal xibnaha laga sameeyo waaye translation koodana waa isku mid tarjumaadooda do sameyn make sameyn waayahay xilligan adeegsadaa marka when to use make xilligan adeegsadaa when to use do xilligan adeegsadaa sideen ku fahmi karaa waayahay cashirkan dhageyso exercise ayuu wataa exercise-ka saa ugu shaqeyn lahayd waxaa ka horeeya inaad cashirka si fiican u dhageystid waayahay horta dhowr waxaan ku siin doonaa steps intaa step markaa baratid oo aad dhageysatid oo aad akhrisid exercise-ka waa ka shaqeyn kartaa waana fahmi kartaa maanta waxa laga bilaabo xilliga waxa aad do ku daraysid iyo waxa make aad ku daraysid waayahay marka ugu horeysa wax walba oo speaking ah dadka ku dhawaaqa ama sounds ah dhawaaq caadi dhaca wax walba oo speaking dadku dhawaaqo afkooda ka soo baxa ama sound ama dhawaaq kala ahaado waxaad adeegsanaysaa ereyga make do malaha make ayaa iska leh tusaale ahaan make nose buuq in la sameeyo nose waa buuq sound waa mujida make nose buuq sameyn make a speech khudbad in la soo jeediyo make a suggestion tala in la soo jeediyo talo qof in la siiyo make a suggestion waa qof aan hadlayo weli make a decision go'aan in la gaaro make a choice in dooq la sameeyo wixii fiican iyo wixii ku inaad kala baxaysid oo dooq aad samaysid make a choice make a plan qorshe in la keeno ama qorshe in la sameeyo marka intaan eray oo soundska ka mid ah oo ah make ayaan siinaynaa tusaale ahaan waxaan leenahay make nose buuq ayuu sameeyey ama buuq baa la sameeyaa make comment ayuu ka baxsaday arrintan make an speech khudbad buu sameeyey make a suggestion talow soo jeediyey make a decision go'aan buu gaaray ama make a choice dooq buu sameeyey iyo make a plan qorshuu sameeyey intaas waxaan ku baranay wax kastoo speech ah ama hadal ah ama sound ah inaan ku dareenno make kaas ahaan ereyga nose comment nice speech suggestion decision choice iyo plan intaas fiirso plan qorsho choice dooq decision go'aan suggestion soo jeedin speech hadal ama khudbad comment fikrad ka baxsasho in fikrad wax laga dhiibto ama la qoro ama la hadlo noise buuq intaas hadday ka hor imaadaan do kuma daraysid waxaa ku daraysaa ereyga make ayaad ku daraysaa waayahay b sidoo kale ereyga make waxaa lagu dari karaa waxyaabahan hadda soo socda waayahay reaction falgal wixii adiga ku saameeya oo kale oo hurdo kaa keena kaa ilmeysiya oo kale ku farxgeliya oo kale waxaad samaynaysaa reaction baa la yidhahdaa falgal waxaad ka hormarinaysaa ereyga make iyagana waa saddex erey oo kale waxaa ka mid ah make your eyes water indhaha ayuu biyo ka keenaa sida daawo oo kale make you happy wuu ku farxad gelinayaa oo kale make you sleep hurdo ayuu kaa keenayaa marka saddexdaas erey make your eyes water make you happy make you sleep intaan sleep iyo happy iyo water waxaad ku daraysaa ereyga make waayahay c wax kastoo products ah products waxaa la badeecad kastoo waddan ka timaada ha ahaato wadamada dibadaha badeeca kasta waxaad ka hormarinaysaa ereyga make baastigiisa oo ah made la sameeyey tusaale ahaan made of gold did of gold ma dhigi kartid waa made of gold dahab baa laga sameeyey made from grapes canab baa laga dhuujiyey ama laga sameeyey made in china laga sameeyey sida alaabta oo kale inta badan waa artaa made by me ama made by Daahir Dictionary Daahir Dictionary baa sameeyey naftirkiisa marka gold iyo grapes iyo china waxaan ku daraynaa ereyga made baan sameynayna sababtoo ah waxay ka hadlayaan products oo ah badeeco waayahay ereyga make kan ugu dambeysa wax waaye ereyga make waxaad ku dari kartaa dhammaan wax walboo sheegta food and drinks
wax kastoo cabitaan hadduu sheegto ereyga cabitaan ba hadduu yahay ama food uu yahay waxaad ka hormarinaysaa ereyga make do ma aha haddaba for example tusaale waxaa ka mid ah make a cake doorsho sameen make breakfast qurac samee make coffee kafee samee make dinner casho sameen marka afartan aan soo sheegnay dhammaan iyadan waxay isugu jiraan cunto iyo cabid oo ah make cake make breakfast qurac samee make coffee kafee samee make dinner casho samee marka intaan waxaan ku baranay dhammaan ereyga make ereyada laga hormarinayo laga bilaabo hadda exercise inaad ka shaqeyn kartaa lagu baahan yahay haddii aan markuu ku soo celiyo waxaa ka mid ah speech hadallada qofku uu sameynayo iyo soundska b waxaa kaloo ka mid ah reaction wax adiga kula falgala c waxaa kaloo ka mid ah products dhammaan badeecada oo wadamada laga sameeyo oo kale waxaa kaloo ka mid ah food iyo cuntada waxaan ka hormarisana ereyga make waayahay do bal ka waran do sidee loo adeegsadaa ereyga do waxaa loo adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa dhammaan housework shaqada guriga laga qabto dhan make ma dhihi kartid waxaa leedahay do baad leedahay for example waxaa ka mid ah do the housework shaqada guriga qabo why do the exam imtixaan qabo do your homework shaqadaada layliga qabo marka housework waxaa la shaqada guriga dhaqida iyo alaabta laakiin homework waxaa laga wadaa shaqada oo iskuulka noola soo diro sida buwaagta inaan akhrino oo kale xisaabaadka waayahay do the laundry waxaa laga wadaa dharka dhaq wasaqa do the dishes saxamanka dhaq do the shopping dukaameysi aad do the cleaning nadaafada ka shaqeey ama dharka dhaq do the iron means feerays dharka waayaha b sidoo kale waxaa loo adeegsanayaa saddexdan erey ama intaa erey soo qaadanay waxaan adeegsanayna ereyga do haddaan soo celiyo mar labaad house work do baan ka hormarsanaynaa homework laundry dish shopping cleaning iron intaas waxaan ka hormarsanaynaa ereyga do make ma haddaba because waa activity waayaha b wax kaloo adeegsan karnaa ereyga to taking care of your body jirkaaga qofka inuu daryeelo oo ka taxdiro oo ilkiisu rumaysto oo kale exercise uu sameeyo cijada iska jaro tinta uu dhaqdo oo kale make up wajiga uu qurxiyo hadday gabartaa oo kale waxaan adeegsanaynaa ereyga do make ma for example tusaale waxaa ka mid ah do exercise jimicsi samee qof yar caylina aragtay do exercise jimicsi samee qof aragtay cidiis dhaadheer waxaa leedahay do your nail means cut your nail laga wadaa cidada iska jar and do your hair tintaada shanlayso do your make up means wajiga isqurxi waayahay c wax kaloo loo adeegsadaa ereyga waxa loo yaqaano do wax kaloo loo adeegsadaa no specific activities shaqooyinka oo soo socda oo kale oo non specific ah oon macnaha aan cabirnayn specific waxaa lahaa wixii gaar ah oo lisla og yahay non specific activities shaqada aan la ogeyn laakiin waan sameynaya inaan dhaho example waxaa ka mid ah waa erayadan iyaga soo socda waa xifdi kartaa waxaa ka mid ah do me a favor ixsaan ii samee ma dhihi kartid make me a favor waa do me a favor ixsaan ii samee tan kale waxa waaye do well si fiican u samee make well ma aha sidoo kale do your best dadaal ma aha make your best ma aha do a good job shaqo fiican qabo make a good job ma aha do nothing wax ma qabto do something wax qabo do everything wax walba qabo do better tan wax ka fiican qabo marka ereyadaas do ayaa loo adeegsanayaa ereyadaasna make ayaa loo adeegsanayaa waxaan filayaa haddii aad ku celiso cashirkan inaad fahmi kartid macallin wax kuma fahansiiyo kow waxa waaye wax fahansiinska ilaah iskale midda kale inaad dadaashid oo dadka adiga wax oo kaa dheer inaad wax weydiis isku day waqti aan ahaya korsan waxaan ugu talgalay maxaa la yidhahdaa inaad ka faa'idaystaan muhiimadda ma aha waa inaad ka faa'idaystaan markaan leeyahay in aan dhammaan wax idinku shugi karo laakiin waan dadaalayaa insha allah ilahay garabkiga galo idinkana sii dadaala exercise ayaan soo diri doonaa insha allah exercisekaas ka shaqeey waxaa sameynaysaa toban wax waa jumlad 5 waxaa samaynaysaa do 5 waxaa samaynaysaa make waan isku dhex dari doonaa haddaba iska ilaali kii do loo sameynaya waan kusoo baray kii make loo sameynaya lagu soo baray cashirka iska akhri